deeqdan oo ka timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Mahad Cawad Cabdalla ayaa maanta lagu wareejiyay taliyaha ciidanka dhulka Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo hogaaminaya ciidamada xoogga dalka ee ka howlgalaya gobolka Shabeellaha Hoose odayaal dhaqameedka degmada Marka oo deeqdan la soo marsiiyay ayaa ku taageeray ciidanka xoogga howlgallada ballaaran ee cadowga looga xoreynayo goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose Allah mahad leh oo maanta meeshan isku keenay labada neef oo geela waxa soo iibiyay ama hibeeyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad wuxuuna u hibeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ku wareejinaynaa maanta taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa maalin farxadeed waa maalin aan ka xoreynayna deegaanka Janaale dadkan oo dhagar qabayaalka loo joogo beeraha loo falan way waxaan iga codsanaynaa in aad dhameystirtaan oo halba askaarin kuwan waxa maanta aad aan u qiiroonaya Mahad Cabdalla Cawad oo soo dhiibay labadaas geel taliyaha ciidanka dhulka Sariye Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir oo deeqdan ka mahad celiyay ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Shabeellaha Hoose ku nool laga dulqaadi doono cadawga al-shabaab inagoo ku jirnaa xoreynta dalka aynu cadawga kaga sifaynayno marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa odayaasha reer Buufo oo hadda halkan taagan oo geelan oo degmada Marka oo halkan maadaama marka aan joogno oo aan u socono inaan dalka aan ka xoreyno oo Janaalan yar noo jirto insha Allah dhawaana aad maqli doontaan inaan gacanta ay cadawga ka bixi doonto in gacan dawladdu ku soo wareegi doonto haddii Allah uu daleedmo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo soo wakiishay odayaashan halka jooga deegaanka Marka ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka waxaan leeyahay aad baa u mahadsantahay inkastoo aanu ka filaynay inta in ka badan aysan labada geel ahayn maadaama gudoomiyihii dhamaatay waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh ay u soo dhaweeyeen odayaashu ciidamadana u garab taagan yihiin oo ku faraxsanahay waxaan leenahay ilaahay baa mahadda iska leh saa ciidanka u garab taagantihiin waa intaas oo ka sii badisaan insha Allah deegaankana waxaan rajaynaynaa isagoo nabad inaan isku wareysano dhawaana maqli doontaa inagoo cadow ka xoreynay insha Allah khayr baa idin rajaynayaa waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq liska ciidanka dhulka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku jiray howlgallo xoogan kaas oo ujeedkiisu yahay ciribtirka nabadiidka maleeshiyaadka al-shabaab Cabdifataax Cabduqaadir Aqyaar warbaahinta qaranka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose